kulanti wacan daawadayaal waa mar kale iyo qayb kale oo cusub oo barnaamijkeeni kafu oo dowladda Baxrayn ay ku abaalmariso dadka haldoorka ka ah wadankaasi ee waxtarka bulshada u leh. barnaamijkeeni maanta waxaa marti ku ah oo la marti qaadaya maamo iyadu si weyn ula tacaashay cudurka kansarka sida sheekadeena aad ku daawan doontaan. لمقابلة إحدى المرضى في المستشفى لكن رتبنا لها شيء أكبر. waxay ka mid tahay isbitaalka hadda lagu diyaariyay arintan ee lama filaanka loogu sameynayo ay ka wada gashaa. sidaad u jeedaan waxa ku qoran Nadia waa walaasheena amaba saaxiib aad u wanaagsan. kalkaalisadii loo yeeray sida muuqata sawirkeedii weyn ayaa ku sawiran gaariga ay wado. الحين الرضيع gaariga canuga yar ee marka la dhalo lagu rido waxa ku qoran adduunku waa qeyr marka ay joogto ayaa la yiri. حياك دكتور. dhakhtarka loo wacay warqadda amaba buugga uu wato ayaa sawirkeedii uu ku sawiran yahay. دخلوا جهاز القلب. كمبيوتر نادية صديق وصاحبة يا ليلي نادية. الحين العربات. وتيمك أما بشقالها إيجو إسبتال كولا قليا لو دياري إني برامج كان كفو أما أديقا مضن أي دياريان. الأعزاء نوه عن استقبالنا اليوم لبطلة ومحاربة سابقة لمرض السرطان. maanta waxaa marti noo ah ayaa la yiri Nadia oo iyadu ah qof ka guuleystay marka alla laga soo tago in ay ka bogsato cudurka kansarka waxaana isku taxallujisay sidii ay dadka uga wacyigelin lahayd dadka daawooyin ay ugu sameyn lahayd oo gacanteeda ay ku sameysay. bal aan dhageysano sheekadeedii iyo sidoo kale dadka sida ay uga hadlayaan. هذه أختي. Nadia waa walaashay waa saaxiibtay أقدر أقول لك إن هي أمي. waxaan أمي مو بس. ogahay inay hooyada oo kale ay tahay بحبها لي. waa qof aan aad u jecelahay sida hooyada oo kale. يعني ما عندها شخصيتها ما عندها انهزام تحب تواجه القدر. waninkani waa saygeedu waxa uu leeyahay isma dhiibin aad ayayna ula dagaalantay. gabadhan iyada dhashay Nadia waxay leedahay waxay ahayd qof aad ula dagaalamay cudurkaasi. عيسى تقريبا اصابت بالسرطان الثدي تقريبا من حوالي 6 سنوات. 6 sano ka hor ayaa mid ka mid ah naasayda waxa uga dhacay cudurka kansarka ka way ka bogsatay. كانت بين البحرين وبين دول مختلفة. socdaalkeedu waxa uu ahaa mid Baxrayn iyo wadamo kale ay uga kulmisay ama ba iraadin sidii uu caafimaad lahayd. تضحك عشان أنا أصوص عشان الست ما تتعب. إنها كانت وايد راعي نفسياتنا ومشاعرنا حتى وهي تعبانة ومريضة. waxay tahay qof mar walba jecel inay dadka farxad gelisay ka qosolsiiso. تبدي الفرحة حق الكل. يعني تحب إحنا نكون خواتها معاها صديقات. aad ayay noo jecleed saaxiibadeedii walaalaheedii mar walba waxay jeceshahay in ay muujiso inay faraxsan tahay. يستانس يكون بشوش. حتى وهي مريضة تبي تساعد تبي يعني. xitaa haddii ay jiran tahay waxay ahayd qof farxad badan oo muujinaya in ay aqoonteeda dadka ay la wadaagto. بالتعافي إن شاء الله وكان يمنها بالله وايد قوي. ilaahay caafimaad ha siiyo ay leedahay. تقول لها جد بس الحمد لله أنا بخير أنا زينة ما فيني شيء. عيسى لها مبادرات كثيره من بعد التعافي. هي Ciise waxa uu yiri markay soo caafimaaday waxay aasaasay account oo Instagram ah oo wacyigelin ah oo ay dadka kaga wacyigelinayso cudurkaasi kansarka. اي احد محتاج يتكلم عن الموضوع qofkii rabo ee cudurkaasi qaba in lagala hadli karo وتواسيه وتوصل له المعلومه الصحيحه. inay macluumaad sax ay ka siiso arrimahaasi المستشفيات اللي يروح inay tusto isbitaalada loo baahan yahay inay aado. جمعيه وتدعم الجمعيه. agaasimaha jamciyadda la dagaalanka kansarka weeyaan ninkan oo isagoo ka sheekeynaya sida ay khibradeedii iyo waxyaabihii ay cudurkaas ay hay'adda ay la wadaagtay. تسوي في العلاج وتحط فيهم أشياء مثلا عود بخور
يعني أشياء اللي يستخدمونها waxay ka sheekeynaysaa waxyaabaha gacanteeda ay ku samayso oo cudurkaasi kansarka ay dadka badanaa ay siiso ay uga bogsadeen. جمعية الأمراض السرطانية. أول ما عرفت إن أنا فيني سرطان طبعا وايد خفت وشيء مجهول يعني ما أعرف شنو بيصير. qoftana waa dad ka faa'iidaystay waxyaabaha ay munaadiye ay samayso. waxay leedahay markii kowaan is baranaynay waxay ahayd mid si weyn waji wanaagsan ay ugu soo dhaweysay naadiya. ما شاء الله عليها. waxa ay tustay sida qalbi wanaag igula hadashay in cudurkaasi kansarka aan u qaato wax alle xaggiisa ka yimid oo aanan ka baqin walwalna aan isugu abuurin. إن هذا ابتلاء من رب العالمين وأول شيء لازم تسويه waa imtixaan xagga alle ka yimid in aan ku qanco. awareness حق الأوادم ترى إن مرض السرطان شيء مو خطير. waxa ay samaysay wacyigelin oo dadka ay tustay sida looga hortagi karo cudurkaasi iyo sida in ay dadka ay u qaataan kaliya hargab oo kale inuu ku dhacay lagana bogsan karo. حسيت بروحها ما شاء الله يعني كلامها وأسلوبها يعني مو بس hadalkeedii iyo qaab isluubka ay igula dhaqanto waxay ahayd mid aad ii farxad gelisay, niyaddana igu qaboojisay. waxa ay tirina kurbadii iyo dhammaan wixii aaminsanaa iga dulqaaday. أختي نادية أنت قوية وبتظلين قوية. naadiye waxaa tahay qof adag, waxaadna noqon doonta qof sii adkaan doona sidaad cudurkaas ula dagaalantaba. مرض. وأنك الحلو اللي فيك أنك أنت قاعدة تشجعين الناس إن هي ما تخاف. أنتي إنسانة وايد عظيمة ومكافحة وتعلمينا وايد أشياء وإحنا نتعلم منك كل يوم. waxaa tahay qof weyn, qof ixtiraam mudan, qof dadka dhan ay yaqaanaan, qof dagaalamay. hooyo waxaan kuu rajeynayaa guul. تستمرين بقوتك وبصلابتك. walaasha naadiye waxaan kuu rajeynayaa inaad sii wado awooddaas aad leedahay. دائما استمري. inaad sii wado ayaan kugula rajeynayaa, kugu boorinayaa inaad wadid wacyigelinta bulshada aad siinayso. والعافية ilaah waxaan kaaga baryaa caafimaad. مرضى السرطان وكذلك يعني wuxuu uga mahad celinayaa sida ay bulshada uga wacyigeliso cudurkaasi kansarka iyo sidoo kale sida ay sida mutadawacnimada ay uga qayb qaadato in dadka ay tusto ama ay siiso fariino ku saabsan cudurkaasi waxa uu yahay. بس أشكرك شكرا من كل قلبي. صراحة في وايد أشياء بحب أقولها بس هو مجرد يعني إحساس وايد صعب أقوله يعني بس أبي أشكرك وايد والله ما عاد الله يقويك ويقوينا ويشفيك ويشفي جميع المرضى خاصة مرضى السرطان وخاصة الأطفال لأنه وايد صعب بالنسبة لهم. mamadana way u mahad celinaysaa. waxa ay hadalkeedii koobnaa ay ku soo gabagabeynaysaa in ilmaha uu alle ka dulqaado cudurkaasi kansarka oo xitaa haddii loo sheego aanan fahmi karin waxa cudurka kansarka uu yahay. حبيبتي نادية. وبعدها دعين لبطلتنا. kadib waxaa loogu yeeray qaybta hoose si halkaasi loogu sameeyo waxa loogu diyaariyey. والله شعور وايد مفرح ما يوصف طبعا خاصة dareenkaygu ma ahayn mid aan xakameyn karay, mid la soo koobi karo ma ahayn. waxay ahayd mid lama filaana wax la ii sameeyey. aad ayaan ugu faraxsanahay wax la ii sameeyey. ma ahayn wax aan ku talagelayay ama aan filayay. من رب العالمين. tani waa abaalmarin dhinaca alle iiga timid iyo jaceylka dadka ay qabaan. aad ayaan kugu mahad celinayaa. الناس المحتاجة أو المرضى. waxaan jeclaa dadka in aan أنا قدرت أدعمهم. tala siiyo, aanna taageero. إن أنا أبيع instagramkayga inaan sii wado oo aan wacyigelinta aan ku wado, sidoo kale aan ka iibiyo
waxyaabaha sida volunteerka aan u sameeyo ee cudurkaasi looga hortago ee dadka iyagu cudurkaasi qaba aan ku taageerayo. waan idin mahadcelinayaa dhammaantiina. waad lama filaan ayaad iiga dhigteen arrintani. tani waxay iiga dhigaysaa inaan sii wado dadaalkaygii ku saabsan inaan xoog geliyo ka wacyigelinta cudurka kansarka bulshada. نادية حبيبتي أنت كفو. نادية أنت كفو. نادية أنت كفو. naadiya adidooda waad u qalantahay ay leeyihiin. المرأة القوية waa haweenaydii adag ee la dagaalantay cudurka kansarka ah. مراحل حياته حق أمل تزرعه في قلوب nolol aad u adagna soo martay 6 sano ka hor markii dambena ka guulaysatay ilaahna uu ka badbaadiyay cudurkaasi kansar. نادية أنت كفو. naadiya adi waad u qalantahay.